السلام عليكم. عمر ومامول شركة وحنا كنول يهي نولل دقن وقروح بدن وحو هيستا قري سيدو كلا وحو هيستا بابور وشركة دكو آدو. عمر واقف حاصله oo ay u dhashay ilmo ama caruur maalin maalmaha kamid ah Umar iyo saaxiibkiisa Abdullah ayaa waxay soo aadeen casino barta qamaarka lagu ciyaaro kadib Umar wuxuu go'aansaday in nasiibkiisa uu tijaabiyo inuu qamaarka ciyaaro oo nasiibkiisa tijaabiyo nasiib wanaag oo u duugan nasiib xumo ciyaartaasi waxay nasiib ka raacday Umar wuxuu ku guuleystay $5,000,000 oo u dhiganta $700,000 kadib Umar wuu ama kaagay wuu yaabay wuxuu gaaray heer uu maleey inuu riyoonayo oo uu daydreaming ku jiro dhinaca kale Abdullah oo ah saaxiibkii Umar ayaa ka maseeray saaxiibkiisa waayo Abdullah muddo badan sanado badan oo uu qamaarka ciyaaray kuma guuleysan lacag u dhiganta lacagta uu ku guuleystay saaxiibkiisa Umar Abdullah wuxuu isweydiiyay su'aal ah saaxiibka Umar sidee ayuu darbada koobaad ama ciyaarta koobaad ugu guuleystay lacagtan badan kadib casino barta qamaarka lagu ciyaaro waxa ka soo tagay Umar iyo saaxiibkiisa isagoo si adag u faraxsan kadib wuxuu soo laabtay maalinta ku xigtay sidoo kale mar labaad ayuu wuxuu go'aansaday inuu nasiibkiisa tijaabiyo laakiin Umar wuxuu isu maleeyay qof daki ah oo aqli badan leh wuxuu go'aansaday kaliya inuu ku ciyaaro 4 meelood hal meel ama 4 qaybood hal qayb oo kamid ah lacagtii uu shalay ku guuleystay oo ah lacag dhan $125,000 laakiin marka nasiibkiisa ma uusan noqon sidii shalay nasiibka ma uunan saacidin wuu ku qasaaray lacagtaas markale Umar wuxuu ku qamaaray 4 meelood hal meel $125,000 oo kamid ah lacagtii shalay wuu ku qasaaray Umar waxa uu soo haray kala bar lacagtii uu shalay ku guuleystay $250,000 wuxuuna go'aansaday inuu iskaga soo tagay casino markii uu sariirta jiifka imaaday ayaa wuxuu ka fikiray inuu soo cishto lacagta badan ee uu ku qasaaray markale ayaa wuxuu go'aansaday inuu u laabto casino si uu soo cishto lacagtii uu ku qasaaray maalinta xigtay wuxuu soo laabtay casino wuxuuna ku ciyaaray kala bar lacagta uu soo hartay oo ah $125,000 si la mid ah sidii shalay nasiibka ma una saacidin Umar wuuna ku qasaaray lacagtii Umar $500,000 oo uu ku guuleystay ma aynan uga soo harin waxaan ka ahayn $125,000 kadib waxa bilaabatay dood wadareed oo ka dhacday maskaxdii Umar waxa u bilaabatay taradud iyo labalabeen dhinac wuxuu islahaa ciyaar waad soo cishan kartaa dhammaan lacagta aad ku qasaartay dhinaca kale wuxuu islahaa waxa kuu fiican inaad gurigaaga u laabato adigoo haysta kista yar ee ku soo hartay ka hor inta aanad gurigaaga u laaban adigoo ebir ah oo ku qasaaray dhammaan $500,000 ee aad ku guuleysatay nasiib xumo Umar wuxuu raacay shaydaankiisii wuxuuna ku qamaaray $125,000 ee uu soo haray kadibna wuu ku qasaaray wuxuu ku qasaaray dhammaan lacagtii uu ku guuleystay darbadii koobaad ciyaartii koobaad ama qamaarkii koobaad uu qamaaray lacagta uu ku guuleystay dhammaan uu ku qasaaray Umar kadib sanad markii ay dhacdadan dhacday maalin maalmaha kamid ah Abdullah oo ahaa saaxiibkii Umar goor uu wadada socday oo uu ku wajahnaa iskuulka maadaama uu ahaa macallin dhiga tiknoolajiga iskuulka meel ka fog 100 mitir waxa ku yaala muassasa ah isbitaalka dhimirka isbitaalka dadka aqli ahaan ama nafsi ahaan u xanuunsan Abdullah wuxuu arkay mashhad uu ka argagaxay oo uu rumaysan waayay wuxuu indhihiisa ku arkay saaxiibkiisa Umar oo taagan ilbaabka isbitaalka dhimirka oo ay laba dhaqtar garbaha ka taagan yihiin mid dhinaca midig iyo mid dhinaca bidix Abdullah wuxuu dareemay naxdin weyn ama argagax weyn kadibna wuxuu go'aansaday inuu arintan baaro inuu xaqiiqada ogaado Umar maxaa keenay ama loo keenay isbitaalka dhimirka maxaa qabsaday maxaa ku soo kordhay Abdullah wuxuu soo galay idaarada ama maamulka isbitaalka wuxuu nabeediyay arintii kadib waxa loo sheegay xaqiiqda oo dhameystiran sababta saaxiibkiisa ka dhigtay qof dhimir ahaan ama si aqli ahaan u xanuunsan xaqiiqduna waxay ahayd sidaan soo socota kadib markii Umar uu ku qasaaray $125,000 ee ugu dambeeyay lacagta uu ku guuleystay qamaarkiisii kooban wuxuu bilaabay inuu isticmaalo hantidii uu isaga shaqaystay oo uu aruurinayo sanado badan oo ugu talagalay inuu mustaqbalkiisa u baxsado oo uu mustaqbalkiisa isticmaalo hantidiisa wuxuu u isticmaalay isagoo isku dayayo inuu soo cisto $500,000 ee uu gadi ahaanba ku qasaaray laakiin markaan nasiibkiisa wuxuu noqday mid dhexdhexaad ah mar wuu guuleysanayay marna wuu ku qasaarayay sidoo kale qasaaradiis ayaa waxay aad uga badneed oo ay ka sareysay guushii isaga uu ku guuleysanay qamaarkaas hantidiisana waxay u dhamaanaysay si kiskis ah isagoo aan dareemeynin ugu dambeyntiina waxa dhamaaday dhammaan hantidiisa wuxuuna ku dhameeyay qamaarkaas Umar waxa uu soo haray baabuurkii uu shirkadda ku aadayay iyo guriga uu degnaa wuxuu iibiyay baabuurkii wuuna ku qamaaray laakiin wuu ku guul dareystay wuxuu rahan ahaan ama deen ahaan ugu qamaaray
guriga uu degnaa isagoo isku dayaya inuu soo ceshto maalkii uu ku qasaaray oo ay ka mid tahay lacagtii uu ku iibiyey baabuurkiisa ugu dambayntiina gurigii ayuu ku qasaaray waa guuldareystay khasaaradaas xooggan kadib cumar waxa uu soo haray hal wado oo ah inuu si qarsoodi ah u xado lacagta shirkadda u shaqaynayay maadaama uu yahay maamulka shirkadda wuxuu mushaarka ka goostay dhammaan shaqaalihii shirkadda lacagtoodana wuxuu u isticmaalayay qamaar inuu ku qamaaro si uu soo ceshto maalkii uu ku qasaaray oo uu ka mid yahay lacagtii gurigiisa uu ku iibiyey ama rahan ahaan uu ugu qamaaray qofkii shirkadda lahaa markii uu maqlay arrinkan xun wuxuu go'aansaday in cumar uu shaqada ka buri oo uu shaqada ka fadhiisiyo kadib cumar wuxuu noqday shaqo la'aan guri la'aan baabuur la'aan dhibaato way isugu kulantay xaaskii cumar markay ogaatay in cumar uu qamaarka joogteeyey uuna ku qasaaray dhammaan hantidiisii waxay ka dalbatay furiin inay kala tagaan ay ka dalbatay maxkamadduna cumar waxay ku xukuntay xanaanaynta iyo biilidda ilmihiisa maadaama uu ilmahaas dhalay xaaskuna ay kala tageen cumar in badan ayaa wuxuu isku dayey inuu isdeldelo si uu gebi ahaanba uga taqalluso noloshan baaska badan leh noloshan jaxiimada ah oo u galay kadib markii uu qamaarka joogteeyey laakiin ma aynan u suurtagelin ma uunan ku guulaysan inuu isdilo muddo kadibna cumar wuxuu noqday mukhtal caqli qof dhimir ahaan ama caqli ahaan u xanuunsan walaalayaal wiil iyo gabarba inta ila socotay ilaa aan nuqdadan soo gaaray qisadan aan idinkaga sheekeeyey waxay ahayd min ta'liif shakhsiyati waxaan shakhsiyadeyda alifay waxaan aniga alifay ayay ahayd laakiin dhinaca kale marka loo fiiriyo waa xaqiiqo dhab ah oo ay ku nool yihiin kumanaan dad ah bal dheh waa xaqiiqo dhab ah oo ay ku nool yihiin malaayiin dad ah dadka noloshaas ku nool waa dadka u go'ay waa dadka u xirxiran qamaarka iyo ciyaaradiisaba u xirxiran haddii aad daabatay musalsalka Squid Game ee Kooriyaanka ah waxaad arkaysaa in dadku ay gaarayaan heer ay ku qamaaraan ama rahan ahaan ay ugu qamaaraan xubnahooda jirka inay ku qamaaraan jirkooda ama xubnaha jirkooda inay rahan ahaan ugu qamaaraan walaalayaal waxaan huba inaad maqasheen in sigaarka iyo guud ahaanba muqaadaraadka ay burburinayaan sixada iyo caafimaadka bini'aadamka qamriguna waa sidoo kale marka uu qofka u xirxiran yahay ama u go'o qamriga wuxuu ka baxayaa nolosha caadiga ah oo uu ilaahay dadka ku abuuray wuxuuna isu bedelayaa sikiir cirbiid qof saqraansan oo ah qof akhlaaq xun oo anshaxa ka baxay laakiin dhammaan dhaqamadaas xun qofka muqaadaraadka isticmaala qofka qamriga caba waxaa ka xun oo ka daran qofka qamaarka ciyaara qofka qamaarka u xirxiran oo qamaarka u go'ay بس ايش رايكم ان اللي اشنع من اللي يشرب خمر واشنع من مدمن المخدرات واشنع من كثير من المصايب اللي يسوونها الشباب في هذا الزمن هو الشخص القمار راعي القمار اللي يلعب قمار انسان مدمن القمار لعلمكم من اشد انواع الادمان إدمان القمار أجاركم الله أعزائي المشاهدين walaal waxa ugu daran ee qofka u go'o oo qofka dhaqan ka dhigto oo nafsadiisa uu ka celin waayo waa qamaarka iyo ciyaaridiisa magaalada ugu weyn ee qamaarka lagu ciyaaro waa Las Vegas magaaladan dadku waxay ku guuleysanayaan malaayiin hanti ah laakiin maalinta xigta waxay u soo laabanayaan inay ku qasaaraan dhammaan wixii ay faa'iideen ama mararka qaar waxa dhacdaba in isla habeenkii ay ku qasaaraan malaayiintii ay habeenkaas ku guuleysteen sababtana waxaan dhihi karnaa waa idmaanka u xirxirnaanshaha iyo waliba u go'id adag oo ay u go'een qamaarka boqolkii 3 oo kamid ah dadka Mareykanka waxay u xirxiran yihiin qamaarka intaas waxa ka qatarsan oo ka daran hal qof oo kamid ah 4 qof oo qamaarka u xirxiran oo u go'ay wuxuu isku dayayaa halkaas qof inuu isdilo oo u isdildilo